السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامجكيني habeen wanaagsan oo alaaba dadka caanka iyo weliba dadka bulshada magaca weyn ku leh ayaan soo fahmsinaa markastana aan jecelnahay in aan la wadaagno taariikhdooda iyo qaabka bulshada ay ku leeyihiin sumcadda iyo weliba taariikhda ay ku nool yihiin. haddaba barnaamijka maanta habeen wanaagsan waxa ama horteeda jooga waa walaalkay DJ Zak. soo dhawow barnaamijka. walaalkay aad baan kuu salaamayaa cabdiqaadir, aad baan kaaga mahadcelinayaa. waana muraan waxa weeye inaan kasoo qayb galo, in dee waqti la wada qaato waxa weeye iswaraysto waa wax muhiima maasha allah. marka aad baan ugu faraxsanahay. waa tahay barnaamijkan habeen wanaagsan ayaa la yiraahdaa, isla mar ahaantaana dad badana ayaan ku wareysanaa caawa, inkastoo dadka haddii aan u bandhigo taariikhdaada, waxaad ku dhalatay waddanka Sweden, waxaana tahay haatana ku nool dalka Ingiriiska. magaciisa uu yahay Zakariya. Zakariya, aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinayaa waqtigaaga wanaagsan iyo qaabka aad noogu aqbashay, adigoo waqti badan aad mashquul tahay, balse aad noo ogolaatay in aan 20 daqiiqo waqtigaaga aan kula qaybsano. marka waa iyadoo kooban taas. marka waxaad noo sheegtay inaad ku dhalatay Ingiriiska, inaad ku dhalatay dalka Sweden. waxaadna ku hadlaysaa luqadii Soomaaliga si perfect oo qof ku dhashay oo kale dalkii hooyo. bal maxaa kugu dhaliyay taas? sidee ku baratay? ni horta su-aashaasi waqti badan bay igu soo laalaabatay. su-aashaas horta haddaan ka jawaabayo, soomaaligana horta waa luqadeena, waa afkeena hooyo, waa muhuraan inaan mar walba aan ku hadalno, aan muujino, dadaal badan aan saarno. waxaan halkan aad ugu mahadcelinaya waalidkeyga aad igula dadaal inaan luqada Soomaaliga ku hadlo, kana dambeeyey xaafadda in Soomaaliga lagu hadlo, aynu barano luqada Soomaaliga. ana markaa dhiirigelin ii samaysay inaan luqadeeda dabagalo oo soo baaro oo luqadeeda hooya waxaan ahayn aan ku hadlin, anoo ku hadli kara laba luqadood kala duwan. waa tahay marka dhinaca waxbarashadaada waxaad noogu barantaa waxbarashadaada sare ilaa jaamacad, dugsiga hoose, bal faahfaahin naga sii. dugsiga hoose waxaan ku qaatay dalka Sweden. dugsiga dhexe waxaan ku qaatay ama sare dalka Ingiriiska, ilaa heer jaamacadeed aan ku dhigtay dalkan Ingiriiska. kuliyaddan ka baxana waxa weeye IT Computer and Business Science, oo aan degree ka haysto. maasha allah, waxa weeye DJ-nimada sid keliya xagga dambe kaga darnayo, noqotay inaan xagga dambe DJ ka noqon, laakiin waxbarashada intaan kula qaatay. maasha allah, qof aad u daayar haddana ilaa heerkaas gaaray. waan kaaga mahad celinayaa dadaalka wanaagsan iyo hadda aad sii wado dadaalka. hooyo aabane iyagana qudhooda ilaahay ajri xasanada lasoo koobi kara ilaaha siiyo. wada carruura kula dhalatay? shan carruur la dhashay oo kaa 3 wiil ilaa 2 gabdhood. maasha allah, allah barakeeyo. ma hal meel iskula noolshihiin mise waad kala noolshihiin? may hadda la wada weynaaday? may markii la kala weynaaday waa la kala nool yahay, laakiin qaasada hadda dalka Ingiriiska keligii qoraa jooga, howlo ganacsi aan u joogo, laakiin family inta kale waa maqan yihiin. waa tahay DJ Zak, waxaad ii sheegtay in aad aad baratay dhinaca ilaa heer jaamacadeed aad baratay, haddana IT-ga aad iyo aad ugu fiican tahay. weli ma ku talagashay inaad macallin noqoto oo dadka Soomaaliyeed iyo dhalinyarada jiilkaaga inaad wax barato? ni horta dhowr jeer igu soo dhacday in aan hamligeygu yahay in aan waddankeena hooyo aan cilmiga aanu baranay waddankeena geyno, dadkan waxa weye uga faa'iideyno, maadaama aan waqti badan ama
faa'iido badan wadamadan qurbaha aynu ka helnay si wax noqoto waxbarashada inaan marka waddankeena aan la tagno soo qaybino dadka la soo qaybino la soo qaybsano weliba waddanka hadda waxa aad ugu baahan yahay sida dhanka IT-ga oo kale ha noqoto cyber security ilaalinta khadadka ama khadadka kala duwan sida xarumaha dowladda xarumaha ganacsiga aadna loo xoojiyo u baahan weliba cyber hacking ku samayn karo marka aad baan waxyaalahaas uga fikiraa in hamigaygu noqon inaan xaggaasiitaan tago hadduu ilaahay igu dubo aan markaasiita waqtigeyga aan xaggaasiita soo geliyo dalkaygana geliyo waa tahay mar kale waan kaaga mahad celinayaa waqtigaad isiisay aan jeclahay in aan barano DJ Zak DJ Zakariya oo da'yar isla mar ahaantan aad u fircoon waxaan kugu bartay waxyaabo badan markiina isku keen dambeysana waxaan aan ku kulanay dalka Turkiga gaar ahaan Istanbul adigoo aad u mashquulsan waxaad ka mid ahayd dadka farakutiriska rikoor u yaala dalka Turkiga bal faahfaahin iyo waxaad inaga siisaa warbixin qaabkaad ku samayseen xafladii dhacday adiga iyo DJ Sweer wadeen welina qof Soomaali aan hore u samaynin arrimahaasi bal annaga iyo daawadayaasha bal sawir guud naga sii horta maasha allah dalka Turkiga wuxuu noqday dalka kaliya Soomaalida hadda aad u soo badanayaan soo degan ahaan ku noqdeen taakuleen badan ay waddankeena ay siiyeen dadkeena Soomaaliyeed dalkoodii midna aad ugu soo dhaweeyey maasha allah ganacsiyo badan baa laga furay aad baa waxa weeye dadkii usoo degan oo qurbaha ama ka yimid ama dalkiiba kasoo guuray fursad waxaan u yeelanay inaan isku wada imaano aniga iyo asxaabteeda DJ-yada ah iyo asxaab fanaaniina oo walaalkay ku jiro DJ Zubair markiina Turkiga imaanay waxaanu aragnay maadaama dad badan ay Soomaali ay waddanka joogaan aad ugu badan yihiin weliba dhalinyarada u badnaadeen qaarkood laga yaabo inay ku fikirayeen tahriib iyo inay waddanka ka dhoofaan ama si uga bixi lahaayeen ka fikirayeen waxaanu go'aansanay inaan sameyno xaflad aad u weyn oo aan ugu talagalnay dadka degan dalka Turkiga in xafladahaneeto kale ama waddo aan u jeexi karno si ay waqti ama waddanka in ay joogaan ay uga faa'iidaysan lahaayeen waxyaalo badan ay ka qabsan karaan inta dadka waddanka joogtana ay isku baran karaan ama iskugu imaan karaan xafladii ugu horeyso waxaan malaynayaa weliba doon lagu qabtay inay ahayd Soomaali ay leedahay waxaana joogay waxaan u malaynaya waxaanu iibinay 550 tigidh ilaa 600 tigidh ku dhawaad oo tigidh ah ayaanu iibinay oo dadka imaanayay kasoo qayb galay maasha allah horta si fiican bay aad u dhacday xafladaas xaflad taariikhi gashay noqotay wana waxaan aad u aaminsanahay in weli ay sii socoto horumarkeeda iyo dadaalka hadda waxa weeye dadka joogaan ay sii wadaan marka aad baan ugu faraxsanahay taas aad iyo aad waxaad tahay DJ-nimada maxaa kugu dhaliyay inaad noqoto DJ-nimada horta waxaa igu dhaliyey marka hore yaraanteeda anoo fanka iyo heesaha iyo suugaanta jecel ayaan waxaan ka biloobay Sweden maraan joogay sanad aan u tegey ayaan waxaan biloobay inaan noqdo promoter ama isku jirada ama qabanqaabiye xafladaha ah xaggaas ayaan kasii hana qaaday oo aan biloobay inaan biloobo ama aan barto xirfadda sound engineering DJ ah oo xagga qalabka xagga sound engineeringka musica producingkiisa ama isku dubridka musica iyo weliba DJ-ga anoo dhiganayay 6 bilood marka maasha allah waxa horta aad u fiican oo aan aaminsanahay qof walba wuxuu jecel yahay inuu ka mid dhaliyaa fiican waana waxaan dhihi karo waa waqti fiican baan waxa weeye soo geliyey hamigeyga waa tahay waxaad ii sheegtaa DJ-nimada dad fara badan dhalinyaro Soomaali badan ayaa waxa ay DJ oo iyagana noo sheegay in aad u fudud tahay adigana waxaad hadalkaaga ku jiray in aad iskuul u gashay iskuul ma loo galaa DJ-nimada waa loo galaa yes koorsooyin kala duwan ay leeyihiin
wax walba horta waa la bartaa cidna kuma dhalato course-ka DJ-nimada dhowr ayuu kala baxaa oo mar adigoo raba keliya inaad DJ noqotid oo mar inaad rabtid adoo DJ noqonayo ama raba inaad baratid DJ-nimada lagu barayo qalabka aad isticmaalaysid saad adigu u xiran lahayd lacala hadduu kaa halaabo saad waxa weeye sound engineering u samayn lahayd haddii noqoto staging haddii noqoto lighting musica laftirkiisa asagaa sii kala baxa oo qaabka musica oo u produce garan lahayd haddii rabto inaad noqoto music producer ama tumitaanka heesta musica la tumayo inaad baratid marka waa wax la barto weeye waana wax horta way fududahay DJ-nimada waxaad fudud course keligiis hadda dheer waa dhiganaya way fududahay wax dhiba ma lahan laakiin course badan ayaa soo raaca oo aad ugu faa'iideysan kartaa haddii rabto inaad si fiican u baratid waa tahay waxa kaloo ku weydiinaya waxay tahay goormay kusoo biirtay waxaad ii sheegtay inaad dhinaca Soomaaliga inaad markii dambe aad kusoo biirtay DJ-nimada marka bal ii sharax sidee yacni ugu soo biirtay dhinaca Soomaalida oo kale horta marka kow DJ-ga noqday waxaan la shaqayn jiray ajaanib oo Soomaali aan ahayn sida fanaaniinta ama rapperska caanka ah ee dalka waddankan Ingiriiska jooga waxaa ka mid ah fanaaniin hadda Notes oo kale Tiyo Wayne way badan yihiin record label aan ka tirsanaa ayaa hoos imaanaya marka iyaga waqti badan la shaqaynayay tourska u raaci jiray ama safarada dhaadheer ee wadamada kala duwan ah kadib ayaa waxaan go'aansaday inaan record labelka aan ku jiray dalka Ingiriiska ah inaan ka baxo oo aan kusoo biiro dadkayga Soomaaliyeed xirfadda iyo cilmiga aan soo bartay maadaama aan ku jiraba inaan dadkayga ugu faa'iideeyo aad iyo aad ay mahadsan tahay waxaan ku weydiinayaa waxa ay tahay weli maadaama aad ku dhalatay qurbaha weli Soomaaliya ma aade Soomaaliya horta waan tegey markii ugu horreysay horta aan tegaya horta anoo dhalinyaraan tegey weliba anigoo istahayo waddanka markii kugu horreysay tahay horta TV-ga waxaad ka arkaysaa maanta qaraxa dhacay shalay saama dhacday marka film horror oo kale ugu shidaya moogtahay marka anoo taas la yaabano isdhahayo bal maxaad kala soo kulmi doontaa ayaan maasha allah horta aad baan ula soo cajabay aad baan ula soo dhacay taasna waxay kaliftay inaan sanad waliba aan tago dalkayga hooyo aan kasoo qayb qaato waqti la soo qaato jawi kasoo qaato meel aan jeclahay inaan aniga nafsadeeda aan rabo inaan u guro ama aan dego maadaama waxa yeele waa meel dadkaaga ay joogaan dadkaaga ah adigoo aad leedahay maasha allah dadkaaga aad waqti la qaadanaysid wax aad loogu farxo aad iyo aad u mahadsan tahay barnaamijka weli waxaan ku geli jirnaa daawadayaal barnaamijkeeni habeen wanaagsan oo mar walba halkan idiisoo hor fadhiisin doono dadka magaca ku leh iyo dadka saamaynta ku leh bulshada Soomaaliyeed aad iyo aad ay u mahadsan tahay DJ Zack waxaan kaloo ku weydiinayaa markii ugu horeysay aad tagtay Soomaaliya sawir noocee ah ayaad aragtay maadaama aad ku dhalatay dalkii qurbaha oo markaas yaa kula socday maxaase kaasoo horbaxay markii aad isku barbar dhigto noloshaad ku nooleed iyo nolosha dalka hooyo oo lagaaga sheekayn jiray markaad ciidda kor tagtay maxaad dareentay dareenkaaga bal ii sheeg dareenk wallahi aan soo koobi karin oo farxad ah weliba markaan kow tegay horta anoo weliba dhalinyaraha tegay waxaan la socday waalidkayga markaan tegey waxay aan ka aaminsanaa ama aan ka arki jiray wax ka duwan baa arkay weliba negative sides aan ka arki jiray ama aragti ka duwan markaan tegey waxaan arkay aragti oo ah dee maasha allah waddankii de waddan ah la tegi karo la booqan karo jawigeedu fiican yahay waddan qorax leh cunadeedu fresh tahay dad lisjecel yahay oo dhibi dhibaatadiisu ka jirin marka waa waxaan la soo cajabay igu kaleftay marka sanad walba inaan ku laalaabto maasha allah horta sanadkaasi haddana sanad kasta waan ku qorshaystaa inaan waqtigan tegay iyo xilligan tegay intaan kusoo qaadanayo waa waxaan jeclahay inaan mar walba aan sameeyo waa tahay
muusigada ma samaysaa oo heesaha oo kale musician ma tahay oo fanaaniinta markii ay abwaanka markuu usoo diro qoraalka heesihii waxaana la saaraa kadib muusiga loo saaraa bal adiga marka ma ku kooban tahay ma waxaa ku kooban tahay oo keliya dj-nimada inaad xafladaha iyo meelaha waaweyn aad ka tunto mise fanaaniinta ayaad wax u samaysaa heesooyin oo muusiga way jiraan horta heesooyin music ama ka qayb qaatay ama aan sameeyey horta cilmigeedu waan leeyahay waa soo bartay laakiin awal horta waxaan la samayn jiray fanaaniinta ajaanibka ah oo aan la shaqayn jiray ayaan musiga badan u sameeyey soomaaliga horta dhowr ama hal iyo laba ama saddex la dhihi karaa intaan wax ka sameeyey laakiin waan ku hamweynahay inaan wax ka bedelo fanka Soomaaliyeed ama musiga Soomaaliyeed waa tahay dj-nimada dhinaca ajaanibta iyo Soomaaliga waad aragtay labadooda markii aad fiiriso farqi intee la eg ayaa u dhexeeya farqi horta aad u badan baa u dhexeeyo ajaanibtooda waa dad waxa weeye hoos yimaada record labels ama management oo waa la manage karaya dad baa maamula heesooda la maamula xafladahooda la maamula annaga soomaalida haddaan soomaali nahay ma lihin ama awood uma lihin inaan heerka sii aan maanta macna fankeena u marayo iyaga waxaa awood u siiyey maadaama dee ama waddamada inay joogaan ay ku dhisheen ama ay heer ay gaareen oo ay rock label ay hoos yimaadaan annaga laakiin fankeena ayaa wuxuu ku kooban yahay in kooban oo halkii waddo marka hore lagu socday keliya lagu socdaa waxaan jeclahay marka in wax iyada laftirka laga bedelo ayna mar noqono inaan ka qayb qaadano hadda waddanku keliya waxaan nahay africa aanan ka qayb qaadan africa music awards africa music awards wuxuu dhacaa sanadka 2 jeer waxa inta waddan africa ku taala way ka qayb qaadataa oo waxay soo bandhigaan suugaantooda ama hidahooda waddanka keliya oo Soomaaliyeed waxaan nahay keliya aanan ka qayb qaadan sababta taasna waxaa keenaysa in aan haysan management ama dad la xiriira ama fanaaniinta ay hoos yimaadaan fanaan walba oo Soomaaliyeed waa independent ama waa keli u socod oo keliya ayaa wixiisa samaysta music soo samaysta laxankiisa raadsada eedadiisa raadsada heesiis asaga soo saarta soo duubta qof iskugu duub maamulo ama waxaasoo dhan iskugu maamulo ma jiraan haddii aan haysan lahayn waxaa laga yaabaa inaan ka qayb qaadan lahayn xafladaha aad ku waaweyn magaceena Soomaaliyeed sumcadda ama magaceeda meel gaarsiinaya weli ma isku dayda marka inaad adiga aad wixii hadda aad u sheekaysay oo kale inaad wax ka bedesho waa istiraadid aan leeyahay dj Zak wax badan ayaad ka bedeli kartaa ama ma isku dayda horta aad baan iskugu dayay ilaa haddana waa ku hor jira oo qorshooyin ku jira aan ka shaqaynayo hawshaas ama record labelka horta qolyahan music African music awardska ama festivalska waa la xiriiray dhowr jeer record labelska laftirkeeda qorshooyin ah waa jiraan oo wayna wadnaa anagoo weliba asxaab kale ay la shaqaynayaan maadaama aan anigu ka tirsanaan jiray laftirkayga record label waddankan inta dalka ingiriiska ah oo aan waqti badan la soo qaatay ama la shaqayntooda ama qaabka u shaqaynayaan aan arkay marka insha Allah waan ku hami weynahay inaan ama fankeena Soomaaliyeed inuu meel shu taagan yahay meel ka sareeyo inaan istaagno insha Allah aad iyo aad ayaad mahadsan tahay mar walba waxaad tiraahdaa mar aan kulanay mar walba dhalinyarada waxaad ku dhiirigelisaa inay noqdaan dad jecel oo si mar ahaantaana qof walbana uu ku siman yahay si marka mar kastana hadal oo waxaa jira la qabsi ah oo aad tiraahdo balse haddan aan xasuusnayn haddii aad xasuusile waa jeclaan lahaa oo if ah oo yani waxa uu ahaa mid funny ah miyaa xasuusin kartaa wallahi horta kelmado badan horta way jiraan aan isticmaalo dhiirigelina hadal hayn ii ah laakiin midkaasito hadda horta way jiraan horta hadda siiba social media platforms aan leeyahay waxaan aad ugala dadaalaa in aan ka shaqeeyo ama aan dhiirigeliyo dhalinyarteena dadkeena anaga iskale dadkeena isugu dhow
annagan isku duuban karno haddiina maanta annagu inas caawin cidina caawin mayso haddiina maanta annagu inas garab istaagin cidina ma garab istaagayso weliba hadda markaynu qurbo joogno hadda wadamo waxaa jira dad kale community kale waxaa jira meel degan hadda waddankaanito kale ingiriiska ka soo qaado oo iyaga hadda maanta meel taagan ama heer gaaray heerkaasna waxay ku gaareen in ay iyaga iscaawiyaan isgarab taagaan ay waxa weeye dhiirigeliyaan marka waxaan leeyahay soomaaliyay siiba dhalinyarada horay ha loo socdo keep the positive vibe hana la dadaalo isku dheganaada leedaha isku dugnaada weliba aad iyo aad waxaa tahay wiil dhalinyara haddana ganacsi xataa ku jira oo diijinimada xataa ay ku sii dheer tahay ganacsi bal waxa naga siiya ganacsigaaga horta diijinimadu waa wax hobby ah ama jacayl aan qabo horta alxamdulilah waalidkay wuxuu weli waxbarashada inaan wax barto ilaa heer jaamacadeed ka soo baxo saasay tahayna waxaan soo bartay aniga business IT computer and business science businesskan soo bartay ayaa waxaan sameeyey inaan maadaama aan arkay waddanka dalkeena in ay dadka badanaa dalkeena kasoo degan ama qurbaha ka guray inay wada degayaan dalka turkiga oo anaga hadda meesha isku wada aragnay waxaa fursad aan u arkay inaan dadka aan caawiyo weliba turkiga ku imaanaya oo jooga siiba soo degaya marka waxaynu sameynaa waxaynu noogu furan 3 xafiis aynu ku qabano waxyaalaha kale ah fiisooyinka u fududeynta fiisooyinka soo dejinta iyo dhoofinta waxaynu kaloo sameynaa real estate ama guri iibinta ama guri kareynta inaan dadka ka caawino guryaha ee waddanka soo degaya maasha allah marka in dadkeena aan u shaqeyno maadaama ay waddankaanita waddan hadda hormaray ah lasoo degayo aad soomaalida ugu soo badanayaan weliba wadamo badan ay kasoo kala guurayaan hami weyn laga leeyahay in aan dalkeenu ka caawino ay noqdaan dadka ugu fursadda fiican ee waddankaasita markaasita degan tahay waxaa noo sheegtay inaad qabato fiisaha guri gadeynta ama iibka oo kale bal ma jiraan marka soomaali fara badan aad wax u samayseen way jiraan soomaali fara badan aynu sameynay siiba hadda fiisooyinka markaynu dhahno caafimaadka oo dad badan waddanka aad ugu xanuunsan aynu ka caawinay ama u fududeyna inay waddanka yimaadaan waxbarashada sidoo kale waxaynu kaloo dadka hadda guryaha dad badan waxaa jira ama ganacsiya waddanka ku leh oo aana imaan karin dalka turkiga inaan u fududeyno ama alaabtooda aynu u dhoofino ganacsigoodan iyagoo wato waa iska jiraan caqabada aan lagu imaan karin waddanka siiba sharciyada inaad sharci soo qaadatid ama soo dalbatid aan u fududeyn inaan alaabtooda u dhoofino u geyno business services wax la dhaho waxaynu kala sameynaa real estate dadka raba inay guryaha ay iibsadaan ama ay degaan ama dadka raba inay guryaha ay ka karaystaan inuu fududeyno waxaa jira wax kaloo dhaho community services oo community serviceska waxaynu ka caawinaa dadka waddanka soo degaya inay helaan waxyaalaha ama asaasiga ah laga caawin karo sida carruurta inay iskool geystaan iskoolada geysan lahaayeen luqadihii laga caawiyo laga turjumo qaamadooyinka aan u dalabano marka waxyaalo badan ayayna ku wadnaa xafiiska ama shaqooyin badan ayaynu ka qabanaa aad aad u mahadsan tahay inkastoo barnaamijkana gabagaba u maraya waxa ay tahay waxyaabaha kuuyaa ka badnaa intii aad diijinimada ku jirteen noo sheegi karta waxyaalo badan horta waa igala yaabka badnaa hase yeeshee hal wax kaliya rabaa inaan caawa kasoo qayb qaato waxyaalaha igala yaabka badnaa waxa weye horta waxaan arkay dhalinyaro badan oo ka faanaya luqadooda dhalinyaro badan oo aaminsan in luqadaha qalaad lagu hadlo inay tahay horumar ama ay tahay wax dalka macnihii in ay luqadooda ay soomaaliyeed ku hadlin waxaan leeyahay luqadaada hooyo waa muhiim inaad ku hadashid sheekadaasna waxaan ku keenay habeen ka mid ah ayaan waxaynu soo aragnay qof waddankii markaasi kasoo laabtay dhalinyaro ah sheekeysanaynay annagoo iswareysanayna ayaa wuxuu ka sheekeysanay si waddanka wuxuu kusoo arkay inuu baadiye tegey geel uu soo raacay waxa weeye waqti badan uu baadiye kusoo qaatay dalka waqti kusoo qaatay asxaab kale ayayna la soo fariistay meeshayna fadhinay
yarkii Soomaaliya igula hadlayay ama wax ii sheegayaba wuu isbedelay markuu isbedelay luqadii dhan buu bedesho wuxuuba iska dhigaba luqadii inuu kashtaba luqada waddankaanita looga hadla ama la dhaho ciyalkan fish and chips ama say wallahi uu bedeshay sheekadu dhaho say wallahi haye marka waxyaalaha sida igala yaabka badnaa marka waxaan leeyahay dhallinyaradeena aad ayaan waxaan u dadaalaa ama amar walba dhahaa luqadana Soomaaliga waa muhiim aniga maanta anaa xoogga saaray anaa ku dadaalay anaa dadaalka saaray weli waalidkeena aad bay ula dadaaleen laakiin hase yeeshee anaa sii dabagalay ama sii tixraacay qof haddii uu kaa hor yimaado oo aad la sheekaysatid wuxuu ku moodayaa qof ku dhashay dalkii hooyo sax waa su'aasha badan ay weydiiyey ilaa aniga aan dhaho waddankaas weliba markaan marmar dhaho waxaan ku dhashay dalka Sweden waa laga aamin waaya xilaa aniga wax maada ku dhalay geed hoostii waad ku dhalato ilaa ala soo baxo walaal sharcigan intuu iska wataa laakiin iska waraaqo laakiin Soomaali baan aniga ma fahanti haye marka maasha Allah horta dad luqadan weyn ku faanay dalkana weliba aad aad ma santaa sababtoo ah waxa jirta xataa waalidiinta aad iyo aad iyagu qudhooda waxay ka qaataan qayb weyn ay ka qaataan luqadda laakiin sidaad sheegtay qofku waa inuu asiga isa soo saaraa markii iskuulka wax la dhiganayo macalinku waxbuu ku baraya wuxuu ku leeyahay adiga isa sii bar intii aan ku baray wax ku darso oo wixii aan ku bara sii baro aad usii faa'iidaysato marka mar kale waxaan kaaga mahad celinayaa waqtigaaga qaaliga ah ee aad ii hurtay maanta oo aan sharaf bay ii tahay bulshada hortooda inaad soo fadhiisato asxaabta waxaan ka codsanayaa na daawanaysa barnaamijkan oo kale waan ku kulmi doonaa balse waxaan jeclaan lahaa in aad noqotaan dad wada mida oo ismaraantaan iswada jecel soomaalinimadu waxay ku jirtaa jacayl iyo weliba iscaawinaad tijisaak 2 iyo 1 maxaa ku darsan lahayd horta walaalkay cabdiqaadir mukhtaar wariyaheena aad baan kaaga mahad celinayaa inaan kasoo qayb galo barnaamijka habeen wanaagsan aan kasoo dhex muuqdo asxaabteeda Soomaaliyeed asxaabta ama bulshada Soomaaliyeed kasoo hor muuqdo waxa la barnaamijka waa la soconayaa waan la socdaa aad baan kaaga mahad celinayaa waqtigaaga adigu laftirkaaga aad igula soo xiriirtay inaan kasoo qayb qaato bulshadana maanta aan soo fariisto waraysigii ugu horeeyay horta aan abid aan Soomaali ama waraysi Soomaaliyeed aan ka qayb qaato marka aad baan kaaga mahad celinayaa